gaashaanbuurta NATO waxay ku dhawaaqeen maalimada berita ilaa isniinta in uu dhici doono dhaqdhaqaaq ama dhoolatus xagga hubka nuclearka ah. Shiine iyo Ruush ayagana waxay ku dhawaaqeen inay samayn doonaan dhoolatus xagga militariga oo labada dal ay soo bandhigi doonaan 2 bil ka hor. Mid ay kusoo bandhigeen ay jirto dhulka Alaska u dhow Maraykanka waa markii ugu horreysay taariikhda markii laga soo tago midowga Soviet waagu jiri jiray in laba dalo waaweyn oo awood leh Maraykan agtiisa dhoolatus ay sameeyaan waa markii ugu horreysay horta. taasna cabsi weyn ku abuurtay ninka odayga ah abaaga weyn Maraykanka. Shiine wuxuu mardhow ka furtay xarun jaajuus dalka loo yaqaan Cuba oo aad ugu dhow Florida. xarun jaajuus hadda ka hor October 1962 Maraykan iyo Ruushka waxay ku sigteen hubka nuclearka inay isku garaacaan. sababta kaliya ee keentay in hubka nuclearka in isku tumo loo dhawaadana waxay ahayd Ruush ayaa wuxuu soo degay Cuba wuxuuna soo dhigtay gantaaladiisa nuclear. taasuu Maraykanka xanaaqay qab iyo qub iyo qac inay dhalato wax yaraa ka dhinnayd saan wax yar laakiin ilaa amarkiis waa la kala booday waa tii markii dambe midowga Soviet uu dhacay oo Maraykan awoodiisii iyo NATO iyo balay ay soo baxeen. taas waa taas. Shiine maalin walba wuxuu ka cabaadaa ninka Maraykanka. Shiine waa tii dhulkan loo yaqaano South China Sea waa baddaan weyn oo dalalkan Philippines iyo u dhow iyo Taiwan iyo waa tii Shiineesku uu sheegtay in dhulkiisa uu ka mid yahay. Maraykan waa hore intuusan Shiinaha 10 sano ka hor tabar ma lahayn. tabartan uu leeyahay malayn waqti 10 sano ka hor Maraykan diyaaradihiisa iyo maraakiibtiisa iyo wixiisa meesha iska mari jireen. say rabaan u mari jireen saan iyo saan isa laakiin hadda yartaan sheeko waxa bilowday diyaaradaha Maraykanka markay dhulkaas ama baddaas aageeda gasho taleefku waxa soo galayo koox Shiinees ah oo dhahayo Maraykan dhulka Shiinaha soo gashay dib u laab. Maraykan iska soo laabtaas dib u soo gurtaa. tii waa ka xanaajis horta Maraykan maxaa yeelay dhulkaas waa dhul ama baddaas ka hadlaa Shiinaha u dhow waa meel Maraykanka dhaqaale ahaan dan ugu jirto oo haddii Shiina uu wada qabsado dhulkaas uu mamnuuco maraakiibta isku gudubkooda Maraykan dhaqaalaha adduunka uu ka helo iyo tabartaan waxaan hoose u dhici doontaa. marka Maraykan wuxuu ka xigaa dagaal uu ka xigaa in Taiwan la qabsado baddaasna la qabsado. sidaas aaweed Maraykan horta dhankaas Shiinaha dagaal u diyaar garoobay hadda idin sheegaa dagaalu 100% Maraykan u diyaar garoobay. Shiine hadduu Taiwan galo sida Ruush markuu Ukraine galay oo kale uma aamusayo hubsi iyo kaliya ma aha. Maraykan wuxuu u muuqataa inuu maraakiibtiisa dagaalka diri doono oo weliba Shiine iyo Ruush iyo Maraykan agooda caadi madaxa isku galo qaad ay ka dhacdo. taas horta meesha dagaalka uu ka qarxi doono u muuqataa waa sababta hadda labada dalbo ay dib u goranayaan laakiin wax wada xaajood maanta furan ma jiro aan ka ahayn aggression ama gardarro. Maraykan wuxuu hadda bilaabay dhaqdhaqaaq military oo Australia ay ku jirto Ingiriiskana uu ku jiro saddexdan dal bas dal kale kuma jiro Maraykan iyo Ingiriis iyo Australia dhulkan Shiineeska agtiisa waxay ka dhisanayaan dhaqdhaqaaq waxbay dhisayaan adig gujiska dhulka hoostiisa galo hubka nuclearka qaadi iyo balaayo. Shiine culaysaa soo koray dhaqaalihiisii aad u fara badnaay 5 sano 10 sano ka hor maanta sidii ma aha. waxay u muuqataa marka sheekadii Ruushka ay ku wadi jireen reer galbeedka NATO iyo Maraykan iyo Ingiriis sheekadii inay Shiineeska ku bilaaween muuqato. Shiinees dabankaas ma ku dhici doonaa mise wuu ka bixi doonaa maanta si Shiinees maxaa fursad u banaan aanan dagaal ahayn. ani uma jeedo fursad kale oo Shiina u banaan aan dagaal ahayn uma jeedo. Shiina waa ishubeeyey hub aad u fara badan ciidamo ka tiro badan kuwa Maraykanka uu Shiina haystaa. muxuu u haystaa gurigiisa u haystaa inuu soo fasaxo ciidanka dagaal la geliyo soo lama sameyn horta. tii waxay u muuqataa nimiyo inay dhici doonto marka dagaalka hadduu dhanka Cuba ka dhici waayo Maraykan xanaaqi waayo waxay u muuqataa dhankaas iyo Asia inay ka dhici doonto markuu Shiineeska xanaaqo. Shiineeska arrinta kaliya maanta dib uu uga goranayo dagaal inuu Maraykan la galaa waxay tahay asaga iyo Hindiya aan dhinac iskaga dhigin xuduud waxaa jiro maalin walba bistoole isku tutuuraan. Hindiya dhulaa laga qabsaday maraasaas u fogeen Shiinaa ka qabsaday dhankaas marka culaysaa furan. Pakistan iyo Shiina laakiin ayaga waa saaxiib. Pakistan iyo Maraykanne waa saaxiib. Pakistan waa dalka kaliya muslina ee nuclear haysto adduunka qaskaas ku jira maanta. marka saxaabay sheekada Falastiin iyo Israa'iil kaliya indhaha ku wada heynaa laakiin meeshan kale uu dagaal ka bilaaban doono inta badan ma fiirno. Ruush dhiiqayar ku jira markii Ukraine loo fiiriyo laakiin tan Maraykanka iyo Yurub ilaa hadda Ilya bin Isweydiinaya waxay tahay Ruushka tabartaan aragnay uu Ukraine ku soo bandhigay
taas le muu hayaa mise ninkan wax kale u qarsan ruush waa ninka nuclearka adduunka ugu tirada badan haysto waay laakiin ciidankiisa lugta baxri ku jiraan marka la fiiriyo Ukraine iyagoo la burbursanayo waa aragtay tabar ma hayaan tuulooyin iyo xaafadii waxba dib loogu qabsanayaa macnaha marka tabar ciidankiisa lugta ah oo sax ay hayaan ma jirto laakiin waxa kaloo jirto meesha khiyaano ruushku waxa laga yaabaa kuwaan uu soo dirooyo ciyaalka iyo yariiska inay ahaayeen laakiin ciidankiisa saxda ah ee dib u gurteen oo dagaal ay u diyaar garoowayaan dagaal weyn oo soo socda caalamka cabsi caadi ah la galay hubka nuclearka haddaadan ogeen hub nuclear hal xaba dii la tuuro ma adduunka dhanaa baaba'ay tusaale ogsina hal nuclear tusaale ayaa la xanaaqi hal nuclear haddii xamar lagu dhufto xamar waa ayaa taqaani muqdisho hal nuclear waa waxaa laga dhimanaa hargeyso ilaa jigjiga ilaa wajeer dalkoo dhan maxaa dadka dilaayo radiationka markii hubka uu qarxo suntaasa hawada galayso oxygenka aa qaadano aa go' lagaa siinaa hora jooga ka dhace nuclearka waa saas ilaahowna mooti